عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. It was narrated on the authority of Umar, may Allah be pleased with him, who said, one day, while we were sitting with the Messenger of Allah, peace be upon him, there appeared before us a man dressed in extremely white clothes and with very black hair. No signs of travel were seen on him, but none of us knew him. He came and sat down opposite the Prophet, peace be upon him. And rested his knees against his, placing the palms of his hands on his thighs. He said, O Muhammad, inform me about Islam. The Messenger of Allah, peace be upon him, said, Islam is to testify that there's no God but Allah, and that Muhammad is the Messenger of Allah, to establish prayer, to give zakah, to fast Ramadan, and to make the pilgrimage to the house
if you are able to do so. He said, You have spoken the truth. And we were wondered at his asking him and confirming it. He said, Then inform me about Iman, faith. He said, It is to believe in Allah, His angels, His books, His messengers, and the last day, and to believe in predestination, both the good and the evil thereof. He said, You have spoken the truth. He said, Then inform me about ihsan, good conduct. He said, It is to worship Allah as though you see Him. If you do not see Him, indeed He sees you. He said, Inform me about the hour, the day of resurrection. He said, The one questioned about it knows no more than the questioner. He said, Then inform me of its signs. He said, That the slave woman will give birth to her mistress, and that you will see barefooted, naked, destitute, shepherd, competing in the loftiness of constructions. Then he departed, and I stayed for a time. Then he, the Prophet, peace be upon him, said, O Umar, do you know who the questioner was? I said, Allah and His Messenger are most knowing. He said, It was Jibreel. He came to you to teach you your religion. Narrated by Muslim. Umar ibn Khattab, Allah raalliga ka noqdo, wuxuu yidhi, maalin maalmaha ka mid ah, anaku nebiga naxariis Allah korkiis ahaatee la fadhina, waxaa nagu soo baxay nin dhar aad u cad xiran, tintiisuna aad u madowdahay. Calaamadaha musaafir kameena muuqneen, qof yaqaanana laguma jirin. Wuxuu fadhiistay nebiga naxariis Allah korkiisa ahaatee wajahadiisa. Labadiisa lowna wuxuu ku tiiriyey nebiga naxariis Allah korkiisa ahaatee lowyadiis. Labadiisa gacmoodna wuxuu saaray nebiga naxariis Allah korkiisa ahaatee bowdadiis. Kadibna wuxuu yidhi, Muxammadow, islaamka iiga sheekee. Nebigu naxariis Allah korkiisa ahaatee wuxuu yidhi, Islaamku waa inaad markhaati ka tahay in Allah mooyee aan ilaah kala jirin, Muxammadna uu yahay rasuulkii Allah, salaadana inaad tukatid, zakadana inaad dhiibtid, bisha Ramadaanna inaad soontid, guriga Allah, xaj inaad u aadid haddii aad awood u yeelatid. Ninku wuxuu nebiga ku yidhi, run baad sheegtay. Anakuna waan yaabnay, su'aalna weydii, runna baad sheegtay dheh.
kadibna wuxuu yidhi iimaanka iiga sheekee. Nebigu wuxuu yidhi waa inaad aamintid Allah iyo malaa'igtiisa iyo kutubtiisa iyo rusulkiisa iyo maalinta qiyaamaha iyo in aad aamintid qadarka khayrkiisa iyo sharkiisaba. Wuxuu yidhi waa runtaa. Wuxuu kadibna yidhi ixsaanka iiga sheekee. Nebigu wuxuu yidhi waa in aad alla caabudid aduu arka oo kale, haddii aasan arkinna isagaa ku arka. Ninku wuxuu yidhi saacadda maalinta qiyaamaha iiga sheekee. Nebigu sallallahu calayhi wasallam naxariis alla korkiisa ahaatee wuxuu yidhi qofkii su'aalka la weydiiyey iyo qofka su'aalka soo jeediyey iskama cilmi dheera arrintan. Ninku wuxuu yidhi waxaad iiga sheekaysaa calaamadaha ay leedahay. Nebigu wuxuu yidhi in ay addoontu dhasho marwadeeda iyo in aad aragtid kuwii kabaha la'aa, dharka la'aa ee dadka ku tiirsanaa ee ariga raaca ah iyagoo daaraha dhaadheer ku tartamaya. Ninku wuu iska tegey. Cabbaar kadibna nebigu naxariis Allah korkiisa ahaatee wuxuu ugu yidhi Cumarow, miyaad garanaysaa qofkii su'aalada i weydiiyey? Waxaan idhi Allah iyo nebigiisa iga cilmi dheer. Nebigu naxariis Allah korkiisa ahaatee wuxuu yidhi wuxuu ahaa Jibriil, malak Jibriil, wuxuuna iigu yimid inuu diintiina baro. Xadiidkan waxaa wariyey Muslim.